ma malaysan kartaa inuu shakhsi ka mid ah shakhsiyaadka caanka ah shacbiyada badanna leh inuu ku biiro mid ka mid ah kooxaha maafiyada? isbeddelka intaan la eg waxaa sameeyay laacibkii hore ee xulka Brazil iyo kooxda Inter Milan Adriano Leite Ribeiro. wuxuu ahaa mid fadhiya boosaska ugu sareeya kubadda cagta, lehna xirfad sareysa shacbiyad badanna u saaxiiba, isla markaana ah mid ka mid ah weeraryahanada ay difaacyadu ku degdegin. wuxuu ahaa mid isbuucii qaata lacag ka badan 100,000 oo euro, laakiin wadadaasi uu ku socday waa uu ka weecday, mana aysan malaysaneyn taageerayaashii u sacbin jiray inuu noqon doono mid ku nool xaalad faqri ah oo aad u liidata. Adriano fooqa sare waa uu ka soo dhacay, wuxuuna noqday shakhsi degan xaafadaha isku raranka ah oo halista badan ee magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil. intaas oo kaliya kuma ekaan wuxuu ku sii biiray kooxda maafiyada caanka ah ee lagu magacaabo Commandoska Gaduudan, taasoo lacagta ku raadisa wadooyin sahlan. waxayna noqdeen sawirada Adriano laga soo qaado kuwa isugu jira mar uu jidka garka iyo tinta isaga xiirayo iyo mar uu sito hub culus. Adriano wuxuu ku dhashay magaalada Rio de Janeiro 17 February 1982, wuxuuna ahaa yaraantiisii mid aad u daneeya ciyaarista kubadda cagta. wuxuu ka soo bilaabay safarkiisii kubadda cagta naadiga Flamengo 1997, wuxuuna sanadkii 1999 u dhaliyay goolal aad u badan oo uu ku kasbaday taageerayaal si qaas ah u taageera. 2001 ayuu ku biiray naadiga Inter Milan, balse sanad kadib wuxuu si amaaha ugu biiray naadi kale oo Talyaani ah laguna magacaabo Fiorentina. kadib wuxuu ku sii biiray naadiga Parma asigoona la joogay ilaa sanadkii 2004, wuxuuna qayb ka noqday sanadkaasi 125 laacib ee ugu fiican taariikhda kubadda cagta, asigoona galay booska 102. wuxuuna dib ugu soo laabtay naadiga Inter asigoona kolkaasi kadib shumiciisa ka shitay garoonka caanka ah ee San Siro ilaa sanadkii 2009. laacibkan ee taageerayaasha Talyaaniga ku naanaysi jireen Imperadorka, asigoo ku raaxaysanaya xirfadiisa kubadda cagta, wuxuu maqlay geerida aabihiis oo u dhintay cudur si degdeg ah ugu dhacay weliba asigoo jira 44 sano. Adriano kolkaasi wuxuu waayay aabihiisa wax walba u ahaa, isla markaana uu ka heli jiray dhiirigelinta iyo talooyinka waaya aragnimo. guuldarada iyo hoos u dhaca Adriano waxay bilaabatay markii uu aabihiis geeriyooday, wuxuuna ku soo baxay shakhsi dabeecad adag isla markaana aan daneyn mustaqbalka horyaala. wuxuu bilaabay inuu si daran u cabo qamriga, isla markaana uu ka soo daaho tababarka kooxda, waxayna tani dhaxal siisay in awoodiisa ay hoos u dhacdo, isla markaana si amaaha uu ugu biiro naadiga dalkiisa ka dhisan ee Sao Paulo, maadaama Inter Milan ay u aragtay inuu yahay faras fajacsan oo aan fagaaraha waaweyn waxba ka gelin sida koobka Champions League. kolkii uu ku biiray naadiga Sao Paulo, muddo kadib wuxuu bilaabay inuu tababarka si aad ah ugu soo daaho, asigoona xitaa kolkaasi waxyeelo u geystay cameraman. wuxuu dib ugu soo laabtay Inter si uu ula qaato xilli ciyaareedkii 2008 ilaa 2009, balse Inter heshiiskiisii waa ay kansashay, wuxuuna dib ugu laabtay naadiga uu ku soo barbaaray ee Flamengo. balse sanad kadib waxay naadiga Roma shaacisay in Adriano uu u saxiixay heshiis 3 sano ah oo uu sanadkii ku qaadanayo 5 milyan oo euro, laakiin fursadan uu mar labaad kaga soo muuqan karay masraxyada caalamiga ah waa uu diiday, wuxuuna dib ugu laabtay dalkiisa asigoo ku biiray 2011 naadiga Corinthians. inta uu u ciyaarayay naadigan waxaa soo gaaray dhaawac daran oo uu muddo la daala dhacayay, waxayna Corinthians kansashay heshiiskii uu kula jiray. wuxuuna markaasi kadib Adriano raacay wadda aan sumcad lahayn, isla markaana geyn karta jeel ka mid ah jeelasha Brazil. booliska ayaa marar badan ku soo eedeeyay kiis la xiriira contraband, wuxuuna si dhayal ah ku lumiyay lacagtii uu helay intii uu ku guda jiray kubadda cagta. si kastaba noloshii xaragada lahayd ee uu ku noolaa Adriano ayaa waxaa u bedeshay dhaqaale yari iyo faqri xanuun badan oo ay ugu wacan tahay sidii qaldaneed ee uu ugu ciyaaray hantidii soo martay, asigoona ka weecan waayay goobaha lagu caweeyo habeenkii, waxayna taasi ugu dambeyn ku qasabtay inuu ka fadhiisto ciyaaraha asigoo aan gaarin xilligii ciyaaraha looga fariisanayay.